wadahadaladii u dhexeeyay wadamada Somaliland iyo Soomaaliya oo ah kuwii ugu adkay dhexmara labada wadan ee Somaliland iyo Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabay magaalada Facaweyn ee Istanbul ee wadanka Turkiga. Shirkan ballaaran ee dalalka Somaliland iyo Soomaaliya oo ah wajigii shanaad ee isku hor fadhiistaan ayaa kuwii ugu adkaan. Dalka Turkiga oo isagu martigeliyay markii saddexaad ayaa u qabtay inay muddo 3 cisho ay ku wada hadlaan labada wadan. Hase yeeshee shirka oo ahaa mid aad iyo aad u culus oo doodo dheer wadaarsaday ayaan ku dhammaan waqtiga loogu talagalay, taasoo safiirka Somaliland iyo Soomaaliya uu hal maalin ugu daray. Wafdiga Somaliland uga qayb galay shirkaasi ayaa madasha shirka ku soo bandhigay taariikh aad iyo aad u cad oo ku saabsan maraaxilkii kala duwanaa ee Jamhuuriyadda Somaliland soo martay, dhibaatooyinkii loo geystay in beesha caalamka ay ka sugayso Somaliland aqoonsi buuxa, gooni-sutaaga Somalilandna uu yahay mid muqadas ah oo ah go'aan shacbi. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Mudane Maxamed Biixi Yunis oo hogaaminayay wafdiga Somaliland una saxay qodobadii ka soo baxay ayaa ka hadlay shirkaasi. marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dawladda Turkiga oo aad iyo aad isugu tixgelisay sidii labada wadan ee walaalahay ay soo arki karaan, aad iyo aad noogu dhex jirtay inay wax mid dhalaa ka soo baxaan wada hadallada labadeeda qolo ka dhaxeeya. ma hadda waxa dawladda Turkiga oo kuna ballan qaaday in waxyaabaha la isku heshiiyay ka mid tahay in halkaan ka sameeyay secretariat. waxaanu ku faraxsanahay maanta inaan labadeedii qolo ku wada hadallo wanaagsan horumar leh. aananu aaminsanahay in marka ugu dambeysay aanu gaari doono wada hadallo ku dhamaada khayr oo qolo kastaaba waxay doonaysaa ay ugu dhamaato. saan ugu horumarka horena uu sheegay waxa weeye qadiyadda Somaliland waa mid aan aanu qadarinay inta shacbigu wuxuu ku hadlay. shacbiga reer Somaliland waa la wada socotaan wuxuu go'aansaday mid hore inay gaar noqdaan. waxaana u soconaa in wada hadaladaasi insha Allah biidillah al-karim halka ay gaarsiiyaan. wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Somaliland Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna iftiimiyay qodobadii la isku afkartay. sida ka warhaysan waxay ahayd wada hadalladu waqti bay soconayeen, waxay qaateen door 3 cisho, doorkan 3 cisho qaateen 3 cisho waxa weeye la isku mari lahaa qodobadii ay ugu muhiimsaneed in qadiyadda Somaliland iyo madaxbanaanideeda ay qiraan, walaalaha inay qiraan oo aqbalaan, iyo qodobada la midka ee muhiimadda u leh shacabkeenu matalinaya bulshadayadii. waxa runtii akhiiran ka soo baxay qodobada aad dareemaysaan ee ka aragteen qoraalkooda aragteen oo ay ka mid tahay in wada hadallada qorshe loo sameeyo qaab dhismeed ama hanaan ama geedi socod wax loogu yeero loo sameeyo qaabkay u sii socon doonaan. sidoo kale iyadoo taa laga duulayo waxa ka mid ahaa qodobadii lagu heshiiyay in la samaysto secretariat ama waxa weeye xoghayn xafiis u santara ama u dhaxeeya oo ay Turkigu waxa weeye qarashkiisa bixiyaan oo laga sameeyo Turki qolo walbana ay cid u magacawdo waxa weeye cid soo magacaabato. sidoo kale qodobkii hore hawadii lagu heshiiyay fulintiisii iyo ka shaqaysiintiisa qaabkii looga shaqaysin lahaa ayaa iyadana la asteeyay, qaabkii looga shaqayn lahaa la asteeyay in gudiyadii la magacaabo iyo sidoo kale farsamayaqaanadii soo diyaarin lahaa qorshihii uu ku socon lahaa hawada Somaliland iyo Soomaaliya ay ku heshiiyeen in xafiis Hargeysa looga sameeyo oo wax weeye lagana maamulo. waxa ka mid ahaa qodob ah in la qiro oo waxa weeye la garwaaqsado sidii cadawtinimada lahayd loo gumaaday ama dhibta loogu geystay dadka reer Somaliland. dadka reer Somaliland iyo Soomaaliya guud ahaan xilliga dawladii ka jirtay dhibtii ay geysatay in la wada cambaareeyo la qiro waxa weeye ayaa runtii ka mid ahaa oo aan ahayn arrin sahlan oo runtii ahayd arrin dareenkayaga aad iyo aad u bedelaysa xasuuqii loo geystay diyaaradii ka kacay ka haaday Hargeysa ee duqeynaya Hargeysa dadka shacabka la garaacayay ilaa intii xadka ka talaabaysay ay ka xadka Itoobiya u talaabayeen arrin la ilaawi kara maaha. waxa weeye waa arrin xasuus badan leh taa iyo sidii loo qiri lahaa loona sameyn lahaa waxa weeye cambaarayn wada jira loo sameyn lahaa maadaama dawladda Soomaaliya matasho dawladda xilliga ahayd kursigeedu ku fadhidana waxaan miiska markan iyo markii horeba soo dhignay inay qiraan apology-na ka bixiyaan. marka qoraalka waa aragteen kulliba waxba laga heshiiyay qoraalkii oo hadda si fiican aan isleenahay waa wax ku ool ah ayaa laga heshiiyay oo la isla afkartay taasoo abuur kartay jawiga wada hadalku inuu sii socon karo. hogaano u noqon karta ama saldhig u noqon karta in marka la qiro dhibtii loo geystay in la garwaaqsado dadka reer Somaliland inay garab iyo xaq
iyo xuquuq ay leeyihiin ku goosteen madax banaanidoodii kula soo noqdeen oo ay dadka reer Soomaaliya qiraan inaanay ahayn caadifad iyo jibo iyo wax la iska yiri ay tahay wax u baahan in la isu qiro lana ogaado inaanay ahayn wax laga soo noqonayo waxa weeye gooni isu taagi iyo madax banaanida Soomaaliland ee bulshada reer Soomaaliland u codaysay inay tahay waxaan laga soo noqonayn ay tahay ay sumad u tahay oo aan waxa weeye ka duulayna waxa kamid ah qodobo badan oo astaynaya qaabka iyo hanaanka wada hadalladu u socon doonaan waa dareemi karaysaa documenti ilaa 5 page ilaa 4 page ilaa 5 page ayaa la kala saxday documentiga noocaas la kala saxday waxa weeye dheerina wuxuu astaynaya hanaanka wada hadallada marka wax ku oolaan u filayna wada hadallada inay noqon doonaan baa lagu heshiiyay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo hogaaminayay wafdiga Soomaaliya ayaa isaguna dhankiisa tilmaamay muhiimadii uu shirkaas u lahaa wada hadalladu runtii waxay ahaayeen wada hadallo waqti dheer la geliyay juhdi badan la geliyay labada kooxood ama labada team runtii iyo wanaag aad u badan iyo firfircooni aad u dheer ay geliyeen waxaan ku faraxsanahay inaan soo saarnay qodobo ifinaya tilmaamayana mustaqbalka wada hadallada iyo halka aan jecelnahay inay higsadaan oo gaaraan waxaan rajaynaynaa kulankan wixii ka dambeeyo in kulamada dambe ay noqon doonaan kuwa intii hore ka sii sahlan maadaama aan u sameynay ambaqaad